والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، waxaad moodaa inaanu daalay oo raggii idinka horeeyay baan wixii aanu haynay baan ku afuufnay laakiin biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waqtiga gaaban aynu wada joogno bifadli illaahi wa minanihi bal waxaynu eegaynaa aynu ka wada hadli karno. waxaan jeclaystay markaa inaan idiin dooro mowduuc muhiim ah oo marka xaqiiqada la eego mowduucaasi wuxuu khuseeyaa jaaliyadda Soomaaliyeed bishakli khaas, laakiin waa amar caam. mowduucan waxa weeye waa dowr almar'a fi lislaam, gabadhu dowrkay ka ciyaarto ama looga baahan yahay markaynu nadariyadda islaamka aynu eegno. dad badani waxay moodaan inay diinta islaamka ay ku dhisan tahay ragga oo ninku uu yahay dee ninka dabadda u baxaya ee u soo quudinaya reerka, haddii uu dagaal yimaado ninka gurmanaya ee reerkii difaacaya. xaqiiqada iyo waaqicuna sida uu ka duwan yahay. haddaynu dib iskugu noqono oo taariikhdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo taariikh alislaamba aynu eegno, waxa inoo caddaanaya inay gabadhu ka muhiimsan tahay ragga. oo meelo badan marka laga eego oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suurati aali cimraan sheeko inooga sheekeeye. sheekadaasoo ah sheekadii maryan hooyadeed imra'ati cimraan. imra'ati cimraan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan bay ugu qaaday, innii nadartu laka maa fii batni muxarara bay tiri. ilaahayow uurkan aan sido adaan ku siiyey. ayadu marka waxay rajaynaysa oo ilaahay ka rajaynaysay inan uu noqdo oo masaajidka masjid alaqsa ka shaqeeya, oo ama khatiiba ka noqdo ama imaam ha ka noqdo ama khaadim ha ka noqdo. laakiin waxay rajaynaysa bay culammadu idhaahdaan inuu noqdo wiil ama inan masaajidka mas-uuliyaddiisa qayb qaada. ilaahay bay u hortay markaa ilmaheedii, innii nadartu laka maa fii batni muxarar, waa khaalisan lilaahi subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu qadiray markaa subxaanahu wa tacaala inay inan dhasho. qaalat rabbi innii wadactuhaa unthaa. ilaahay xaaladdii way isbedeshay bay tiri, inan baan umulay. waxaan umulay waa inan. inantu rag uma khudbadayn karto, rag ma tukin karto, ragga ma dhex ordi karto. dee waxaan moodayay muu noqonin caynkay weeye xaaladdii oo kale. ilaahay wuxuu uhi wallaahu aclamu bimaa wadacat. ilaahayna wuu ogyahay waxay umushay. walaysa adakaru kalunthaa. xikmadda halkaa eeg, walaysa adakaru kalunthaa. dakarku, wiilku iyo habluhu isku mid maaha, isku meel maaha. waayo marka la eego meelo fara badan inanta ayaa ka faa'iido badan wiilka. marka waxaan doonayaa maanta badoorka ay gabadha muslimadii ay ku leedahay iyo waajibaadka laga filayo inaynu wax ka yaro taataabano biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. mana jecli had iyo goor inaan cid cambaareeyo ama aan cid wax ku sheego, laakiin mawaadicdan ka hadlaya waa mowduuc caama. ma doonan inay dumarku halka ka soo boodaan ay dagaal nala galaan maanta, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu taataabano waxay leeyihiin iyo wixii lagu leeyahayba. dumarku ilaahay subxaanahu wa tacaala horta fadiilad buu siiyey aanu ragga siinin marka islaamka ay timaado, taasoo ah
gabadhii ugu horeysay qofkii ugu horeeyay muslimay ee kalimati tawxiid ku dhawaaqay marka nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam laga yimaado ruux dumaru ayuu ah oo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam risaaladii markii loo soo dhiibay uu xambaaray qofkii la qaaday wuxuu ahaa khadiija radiyallahu anha nabiga sallallahu alayhi wa sallam markuu asagoo naxsan oo gariiraya uu soo cararay gurigiisii buu yimi umuu baydhin xamza bin cabdilmuطalib oo lagu yaqaanay inuu yahay nin geesiya oo ugaarsada libaaxyada umuu tagin abu aalib oo ah adeerkii oo loo yaqaano inuu yahay caaqilkii iyo sultaankii magaalada laakiin nebigu sallallahu alayhi wa sallam waxa la yidhi markay mu'arikhiintu ka hadlayaan khadiija ayuu u soo cararay sidii ilmo yar dhabta ayuu markaa kaga jiifsaday asagoo argagaxsan oo naxsan wuxuu sidaa u sameeyena asagoo og dhaqanka carabtu ina laga yaabay inay cayb tahay oo lagu yasi doono nebiga sallallahu alayhi war ma gabadh baad u cararta maxaad ugu iman weyda rag wax kula qaban kara laakiin wuxuu ogaa miqdaarka iyo gabadhiisu meeshay taagan tahay markii waa kii soo cararay ayidhi zammiluuni waana garanaysaa qofka markaa khadiija waa tii ugu jawaabtay kallaa wallaahi lan yukhdiyaka allahu abada ilaahay weligaa yaa allaha kuma xumaynayo mid xun kuma dhigayo waxaan uga jeedaa marka gabadha muslimadii ilaahay subxaanahu wa tacaala meel sharaf leh ayuu ka siiyey diinta islaam waxaa intaa u dheer qof nafta laga qaado islaam aawadii oo la dilo dee waxay ahayd sumaya umma cammaar nin umuu dhiman islaamku qofkii ugu horreeye dhintay ee dhiiggiisa dhulka la dhigay ee ruuxiisa laga qaaday islaamka aawadii islaamkada waxay ahayd sumaya waxay ku tusee markaa gabadhu muslimadii sharafta ay leedahay qiyaasa oo ha ilaawina waxaynu ka hadlaynaa mujtamac cajiiba mujtamac hablaha aasi jiray dumarka kala dhexli jiray gabadhu qiimo aanay lahayn inanka iyo odayga iyo adeerka kolba gabadha qofkii soo gaadha ayaa kaxaysan jiray dumarka marka qaarkood ragga xitaa rag ways amaahin jireen wuxuu odhan jiray nin gabadhiisa wuxuu ka odhan jiray orodoo hebel u tago uur ka soo qaad laga yaaba mararka qaarkoodna siday taariikhda inoogu sheegayso inay gabadhu intaasoo nin khaymad ay la gelayso kolba kii ay doontay ilmaha ay siinayso mujtamac baynu ka hadlaynaa markaa aan dumarka qiimo siinin maca daalika ilaahay wuxuu ku bilaabay qof muslima qofkii ugu horreeye muslima inuu noqdo gabadh qofkii ugu horreeye dhintaana oo diintana u dhinta inuu noqdo qof muslimada oo gabadha waxaa intaa inoo dheer qofkii ugu horreeye xoolihiisa islaamka u huray waxay ahayd khadiija radiyallahu canha gabadh haajirada oo la yaqaano oo xoolole oo sidayna maanta aynu waa business lady ah oo loo yaqaano milyaneer inay magaalada ay ka tahay magaalada maka ayay diintii ilaahay xoolaheedii u hortay intaan la soo gaadhin abubakar intaan la soo gaadhin dadkii ka dambeeyey cuthmaan oo kale intaan la soo gaadhin dadkii markii dambe muslimay khadiijo ayay ahayd radiyallahu canha qofkii ugu horreeyey ee xoolaheedii u huray diinta ilaahay biidnihi subxaanahu wa tacaala waxaa intaa inoo dheer hadday sheekadu caynka ay tahay markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu soo haajiray waynu garanaa hooyadii abubakar hooyadii iyo dooray ka ciyaartay asmaa binta abi bakr radia allahu canha waxay ka ahayd dadkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu doortay gabadh 9 bilood ilmo uura ku sidas kama yaquulu bacda almu'arikhiin gabadh foolanaysa oo dee 9kii dhammaysay ama ku dhow ayay inta nebiga sala allahu calayhi wasalam quudka u qaaday iyo wuxuu maalintaa cunayo ayay buurta la kori jirtay 3 cishow nebigu sala allahu calayhi wasalam uu dhuumanayay dee qofkii cuntada u geyn jiray wuxuu ahaa gabadh bay ahayd oo waxay ahayd asmaa binta abi bakr radia allahu canha gabadh fariida ayay ahayd oo nebigu sala allahu calayhi wasalam kadib loo bixiya daata nitaaqayn
waxaasoo dhan waxaan uga jeedaa gabadha muslimadii door muhiima ayay ka ciyaartaa marka la eego diinta meel halbowla ana way kaga taallaa ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waayo bisalaaxiha hadday gabadhu hagaagto bulshadu way hagaagaysaa hadday gabadhu fasaaday xumaatana waynu taataaban doonaa bulshaduna way xumaanaysaa gabadh la odhan jiray sulaym oo dhashay anas binu malik bal xikmadeeda lagu tusaya waynu naqaana qisadeeda meer badanna waynu ka maqalay culimo fara badanna waynu ka dhagaysanay sulaym xikmadeeda bal eeg nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu soo haajiray oo la soo qaxay ayay waxay aragtay raggiyo dee nebiga sala allahu calayhi wasalam hareeraha ka fadhiya cilmigii bay ka qaadanayaan diintii bay ka baranayaan taqwadii bay ka qaadanayaan nebigii bay sala allahu calayhi wasalam xaji goor la fadhiya way u timi markaa nebigii iyadoo ilmaheed yaraa wadda ilmo yaroo 10 jira ayay waddaa ama culammadu yidhahdaan 8 jira ayuu la yidhahdo anas binu malik anas bay keentay way u soo badashay way soo qurxisay waxay tidhi yaa rasuul allah ha kuu shaqeeyo kan yari ha kuu shaqeeyo ha ku caawi qof gacan yara waad u baahan tahay oo markaad weysada ama kabta ama dee wax yar aad diratid oo dee haddaad wax arrimo waaweynaad saxaabadda aanad doonin inaad aad u diratid kan yar u diro yaa rasuul allah una ducee bay tiri una ducee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu duceeyo wuxuu yidhi ilaahayu cumrigiisana dheere risiqna sii ballaadha caruurtana u barake anas wuu yimaadaa habeenkii nebigu iska ag fadhiya waa ilmo yar sulaym marka waxay tidhaahdaa ilmaheeda waxay ku tidhaahdaa war ii war maxaad nebiga ka baratay sala allahu calayhi wasalam cilmigii markaa maalintii oo dhan uu dhagaysanaya ilmaha yar ku dhacayay ayuu habeenkii hooyadii u gudbiyaa waa hooyo xakiimada oo cilmi iyo caqli ilaahay subxaanahu wa tacaala siiya haddaynugu noqonno dib taariikhda ummadda islaamka waxaad arkaysaa ummadda islaamku waxay ku dhisnayd dumar waayo culammadan aynu dhagaysano oo dhan dee horta dumar baa dhalay waa kow laakiin ciddii soo ababisay ee maalintii ugu horreysay ku canqarisay cilmi iyo taqwo iyo cabsi ilaah dee aabbaha muu ahayne wuxuu ahaa hooyada ayay ahayd imaam axmed binu xambal waan idinka sheekeynayaa ama mid baa idin taaban karaa imaam axmed binu xambal wuxuu ka dhashay reer ahlilcilm ah laakiin fuqara ah aabbihii markaa wuu dhintay hooyadii markaa yani gabadha muslimadii doorkii ka ciyaari karto ayaa lagu tusaya hadday ay saalixata ay tahay hooyadii marka intay soo kaxayso ilmahan yar ayay la soo gudi jirtay waa gudcur waa madow magaaladu sideennan dee sidaa kama wada hilaacayaan waa saq dhexe ilmihii yaraabay keentaa masaajidka intaan la adimin masaajidkay soo gelisa halkaa fadhiisa bay tidhaahdaa xagga dumarkay fadhiisataa salaat alfajr bay la sugtaa ilmaheeda markuu salaat alfajr ay tada macallinkiiyo wax u dhiga daba markuu ilmihii yaro kobco uu yaro weynaaday ayay habeenkii guriga yaquul axmed bin xambal asaga iska hadlaya anoo yar ayay hooyaday odhan jirtay guriga adiga u nina guriga adiga u imaama guriga adiga u sheekha si nin u hadal si sheekhnimo ah nolol dhaqan si nin caalimo oo taqwad leh u behave garayo dee akhlaaq lagugu arko qiyaama leyl ay odhan jirtay adiguna tuki adiga bay leen imaamkii guriga ah hooyo wuxuu yihi hooyaday markaano ilmo yara ayadoo iga quraan badan oo iga cilmi badan ila waa nooc min atarbiya ayay i joojin jirtay say odhan jirtay adigu salaada inoo bilow wuxuu yidhi markaan yaro weynaaday ayaan hooyada intaan soo gaaray marxaladeedii baan dhaafay markii dambe waxay odhan jirtay hooye adigu sii wad anigu waan daalay waa iska seexan jirtay waa xikmad markuu 6 iyo 10 jir noqdana waxay tihi orodoo ka tag meesha cilmi doono iyo diin waa hooyo
سبحان الله. إمام الشافعي سيدا سلك يتيم بأصنعها. إمام مالك بن أنس مركو يرى أيه ويدي أسو أنت سوق قبته أسو بدش مريه علماء زي العلماء هيئة العلماء بيقصوا بدشي وحي كتر اذهب وتعلم من ربيعة الرأي وخذ بخلقه قبل علمه، وفي رواية وخذ بأدبه أو من أدبه قبل علمه. أرض بيتري بح لفرس ربيعة الرأي وعالمك مركب مدينة شوقي إذا تكبر أنت عن العلم جيسة كبرانين وتوجيه هو ينماء وحكو تسسى مركا دورك هو يدو ميشو وكتاقية هاي تربية دا أمد. إمام ابن تيمية وين نقالنا أحمد بن عبد الحليم وابن تيمية ومركا تاريخ دا أمد اللي إيغو لقي مدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عالم لقو قياسي كراه الله أوران كرا نكن إسكو علمي بيهنو إسكو فهمي بيهنو إسكو درجات بيهن متشرو وهانين عالمة أو بليغة أو كاتبة أو مفوهة أو جميع المذاهب كوقت قاعد شري يقانة أو متقنة أو مجاهدة أيها ولا يخاف ولا تأخذه في الله لومة لائم نين لمدي موتشرين وحنبارسي مقعي أيدي وابن تيمية لما إلى هذا أحمد بن عبد الحليم لقيها به قارب بدن هدان مان وهلك فردي هدي أن ويدين لها وار ابن تيمية مجي عيسى بل مجي عيسى شاقة إن قارب بدن كل من لها يعني كبيح لهين أي لقيها به مجعين أن قانا وتيمي وابن تيمية وايو أيدي أيال أورنشري تيمي أو عالمات أهين مركي لا أركي الميرو النابي غدا أو وح يلو ديبا حفظية أو ما شاء الله تقية أو إلهي سبحانه وتعالى كعب صنية أو علمي حنبار صن أيال ونيو المهاسي يلمديها سار أيدي سار دوح الله بحين يا ابن تيمية. البخاري ولمد سفيان الثوري ولمد هديان إدين سوق سعد الليث بن سعد ولمد علماء حسن البصري ولمد سعيد بن المسيب ينتيس ولمد يعني هدين ما أنت ولا كان أينو تاجنونا أينو سنهنا تريجريا أما حسن علماء دي أي هو ينكت سوكوريين أما أي أثر كل هاين مرة ما ينو وحنوجه هذا مركا هو يدو الدور كي كل هان كرتو المه يدور كي كعياري كرتو جالية المه مركا هدوي هاي المه الصالحة وهو يهجاكسني أي الشيء waxaan laga filayaa marka inuu ummadu ay ka faa'iideysato oo ummadu ay dhaxasho wixii ay hooyadii ku shubatay inanba ayagoo isku mid yihiin sheeko yar baa dhacda kale wada manqasheen oo ku saabsanay Saciid bin Musayyib radiyallahu anhu wa rahimahu ninkaasi wuxuu ahaa nin taabiciya oo laakiin caalima oo ummadu ay aad iyo aad uga dambayso sharafna intaas ugu filay laakiin waxa loogu abtiriyaa gabadh uu qabo inuu dhalay Abu Hurayra radiyallahu anhu inta waxa u dheer inan ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay qurux iyo akhlaaq iyo cilmi bale amiir almu'miniin iyo caruurtooda iyo dadka umarada iyo dadka xoolaha leh maalin walba mid bay soo diraan waxay dhaw bal inanta nasiyo inankan u goorinne wuu diidaa ما دوني مرة إن أنت إذا إن الملف يتناقيه وحمرك الله صوش شاقي نين أرددي سكمل أورد لينيرو عبد الله بن أبي وداع على أورنشري أي صدح الشو أي كم مقنا حلقة دي ما رين تدنا أيو يمي سعيد بن المسيب مركي حلقة دي لما تبي كوي ورمحار دعي صدح شو كمان أرجع محار دعي وحولي يا إمام بويري قبل لي بيقول لما تحاس كان قبل أيام لما تي ريركي رير حاس مركار إن أنت قبل لي من آسيي ده حاس كمان آسيي صدق 11 شوان مشغول بانها يقرها لي ها وحي ورما قرصت إسلامي يمكن أورانيا بلا وحي وكاسموش عليهم بالأورانيا يمكن مركان ما قرصت بويري صدق شاك سوور يكتيه خير ميالات وحولي يا إمام بويري ومن يزوجه يا يقولين يا بنين فقير بانا يا يقولين الدنيا صدح دينار يوم صدح درهم أيام كله يا هيبا
xoolo aan sheegto oo inaan ugu geed fadhiisto aan yarad iyo meher iyo aroos ugu waxaas maba jiraan buu yidhi yaa ii guurinaya inantiisa wuxuu yidhi aniga ka war haddaan kuu guuriya inantayda faatima bintu saciid wuxuu yidhi marka argagax baa horta waan miyaan naxa mise waan farxa ma shaki baa waxaan wadaadku mi yaro waashay mise wuxuu ku hadlayaa xaqiiqad ii meheri buu yidhi waaye labu u yeedhay marka war markhaati ka noqda inaan ninkan inantaydii aan siiyey wuxuu yidhi marka waxaan ahay faqiir kaxyaan sacluug shil ma haysta buu yidhi waanan soomanaa gurigii baan iska tago iska soo afur wataa la tukaday waan tegey gurigii baan iska dhex fadhiistay wuxuu yidhi marka qurus yaroo roodhiyo angegan aan saliid anoo ku dhuuqaya wax kale guriga ima yaalaan buu yidhi in yaroo milixoo angegan ayaa albaabka la garaacay faqultu man waa kuma qaala saciid waa saciid buu yidhi wuxuu yidhi saciid waana aqaanayba magaci wuu igu soo dhacay buu yidhi tolma saciid hebel hebel baa mise waa saciid hebel hebel mise waa ninka saciid bin musayib mooyaane waayo buu yidhi 40 sannadood waxay ahayd caadadiisu inuu cishaayi uu tukado uu gurigiisa uu tago cid lamu hadli jiro albaabkii baan furay waaba saciid bin musayib taagan meeshii maxaa dhacay buu yidhi maad ii yeedhi anaa ku iman lahaay maya buu yidhi laakiin waxaan dareemay buu yidhi inaanay cadaalad ahayn inaad keligaa caawa seexatid ayadoo gabadhii guriga magaalada gabadhaadii magaalada ay joogto wuxuu yidhi markaa intuu ka yaro dhaqaaqay mise waaba gabadhii halkan taagan buu yidhi waaba gabadhii halkan taagan wuxuu yidhi marka wuu soo riixay albaabkii buu noo soo xidhay maanu wada sheekaysanin maanu haasaawin caankay u egta garan maayo niqaab bay xidhan tahay ayadus ima garanayso inan dee maasha allah facebooka ragga kala haasaawdana may ahayn inan maasha allah sawir cadcad oo qurux badana inta facebooka soo geliso hadhowna dhagax yaroo madow kaaga soo baxana may ahayn ee waxay ahayd gabadh dee ku eeg oo gurigeeda taqaana oo diinteeda taqaana wuxuu yidhi markii ay soo gashay oo albaabkii noo xidhay ayay inantu suuxdeen naxdid aawadeed anna wuxuu yidhi marka waa naxay horta wuxuu yidhi lugtan ku yaro dhuftay roodhidii iyo ciid iyo milixdii iyo waxaan sidii ceebtaada arkin ee is-astur wuxuu yidhi waan carabay dushaan isku taagay waan qayliye kooyadana guriga ka maqantay wuxuu yidhi yaa ayuha annaas زوجني سعيد بن المسيب ابنته سعيد بن المسيب إن أنت سوي إيجورية حتى يعرفتان برتو جوري قبل كسر بحيسة هورنا ودات كسوق مذوب مري إلالي أوكسون هذا وحيري إسلام حافظ دايدو شار كيجا آيات كذبت بينالات هبيتري سعيد بن المسيب حين أنت هذا السعلوك أديو كلا وقدرية هو يدي بين مقاشي والقيرة دي وحي قتري إن لمستها هديت إن أنت تابتت فويلك ثم ويلك وأنكو دي لي يحدث إن أنت تابتت بي وحولي وي إسلانتي باتمي إن أنت قريقي بالله يقصاري مري قريقي الله يقصاري أي حد لو ليير إن أنت يو لقاضي لسوق قرحيي لسوق هقاتيي ما شاء الله ليسوا دياري وحولي وان سوق لي فما رأيت أجمل منها قط قولك قروح بدن ولي يا الله ما ضحيكم يصور عمبوي والنعم وحول إلهي سبحانه وتعالى هبينك بدل لبيك اللهم ما لبيك كبعد بوي الصبح دي بان كعي إذا إمك أرض بان هاي وضيقا دي إن أنت كقورسنا ومعلن كيك ما هبصامي كرم وأنت جيبوي وعن بحي وحدو ينبحوا إلى أين بيقول حاجة تجلسة دي وضيقي شيخ سعيد بن المسيب كسر لقانية قالت اجلس فعلم أبي عندي وحو أبهي يقانور رمبا أنيقا هيا بل يرفع لي سبيت الوكاي أنا وحكور لقايا هبلها ما أنت انتو دبادن إلا ما رحم ربك مركا لقورسدو متكورنا سا علمي بانكو هيا مجرتو أما وحبان كور لقايا مج اسكباداتا لكن لقايا بإنا كترا هذا بل إنا جاي شريتون أما إنا جاي إن ميلكلا إنا جاي أما أدون يا أموره سأكرر ما ويدو إن أنت علماء دي مركا ويحللين
waxay yidhaahdeen yaa soo tarbiyadeeyey fadliga yaa la siiyaa addaba oo loogu abtiriya khayrkan ma saciid bin musayib mise hooyadeed wixii dumar guriga joogay waxaa la yidhi aabbuhu shaqo kumuu lahay aabbuhu waayo aabbuhu dee markuu guriga subaxdii ka baxo masaajidku fadhiista duruus buu akhriya habeen oo dhan iyo maalin oo dhan cishaay buu ka soo rawaxaa goormuu wax tarbiyadeeya goormuu wax u dhigaa carruurta goormuu kala dabbara maba waqti ma hayo laakiin xikmaddu waxay ku aasantay waa hooyada baa la yidhi marka gabadha muslimadda ee soomaaliyeed haddii ay garanayso doorkeeda iyo muhiimadda ay leedahay waxay u xidhan lahayd inay carruur wanaagsan inoo soo koriyaan waxaa timi markaa dumarka iyagoo intaa le intii lagu leeyahay baynu sheegaynaa waxaa timi dowr almar'ati alfaasida gabadha faasidada ee aan muslimad hagaagsan ahayn haddii aynu runtii aynu u gudagallo ama ay dee inala joogto mafaasidkay leedahay ayaynu taataabanaynaa qudheeda kow nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil lagu rogay ama lagu ibtileeyey dumarkay ahayd ina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nnisaa dumarkii markay u taag heli waayeen oo dumarkii reer bani israa'iil ay qaseen bay ilaahayna subxaanahu wa tacala reer bani israa'iil uu rogay gabadhu haddii ay saalixo tahay mujtamaca way hagaajinaysaa haddii ay faasido tahayna mujtamaca way hallikaysaa way rogaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska wuxuu ku yihi ittaqu dunya wattaqu nnisaa adduunkana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya waayo gabadhii haddii aanay saalixad ahayn ay taalixad tahay waa musiiba inta waxaa u dheer hooyadii haddii aanay saalixad ahayn carruurtii aynu ka rajaynaynay iyo salaaxii aynu ka rajaynay carruurta iyo durriyaddan ka sugaynay waa kasho hadday hooyo ay tahay aan ilmihii qur-aanka baraynin oo aan diintii baraynin oo aan akhlaaqdii baraynin oo ilmaha caynka loo ixtiraamo aan baraynin caynka aabbahooda ay u ixtiraamo aan baraynin dee waa ka soco waxaa idinka sheekaynayaa gabadh gaalo ah waa gabadh madow oo soo muslinto marka hore gaalo ahayd ayaa gabadhaasi waxaa iga yaabiyey gabadha anaaba soo muslimiyey waxaa iga yaabiyey marka la soo muslim yani anaa u qabtay shahaadadda waxaa iga yaabiyey gabadhani siday ninkeeda ula dhaqanto nin baan u guuriyey kaloo madow african american waxaanu deganay markaa maryland meel idhahdo oo maraykanka ah ninkii markaa wuxuu igu dhahdaa saciid iimaan buu dhahdaa gabadhu waa cajiib gabadhu ilaahay noo barakay dumarka african american waxaa lagu yaqaana dumarka madmadoowe soo muslimee maraykanka degan inay taf yihiinoo ay adag yihiinoo taagtaagan yihiinoo ninka halka hadi goor ay ka jiraano oo laga acawdu billaysto ninkana gabadhiisa wuu ammaanaya waana aad buu ugu faraxsan yahay inantii baan u yeedhay ii warran baan ku iri waxay tidhi caynka ninka loola dhaqmo ninka caynka loola dhaqmo waxaan ka bartay hooyaday haye waxay tidhi hooyaday waa hooyadoo gaala iyo aabbaheedoo gaala hooyada bay tidhi markuu aabbahay yimaado intaanu imaanin bay annakana sii diyaarin jirtay way noo sii maydi jirtay looshin bayna sii marin jirtay wayna sii qurxin jirtay cadar bay noo sii marmarin jirtay annakoo diyaara oo aad moodeen inaan dee aroos tegayno xaflad aan tegayno qurqurux badan oo naloo sii maydho naloo sii subka baa aabbahay yimaada markuu jeliska uu alba maftaaxa ku dhufto ay tiraa dusha kora yaaca waxay tidhi marka aabbahay hooyaday halkaa tuwaal baa u saaran aabbahay kursi baa albaabkay u dhigtay bay tidhi kursigii bay ku fadhiisisaa kabahay ka bixisaa maryihii uu xidhnaayo saray ka bixisaa
tuwaalkiina way siisaa waxay tahay musqusha kala soo meydho alaabtiisii bay tiri markaa musqusha ayay u taallaa markuu ka soo baxo uu musqusha ka soo baxo cuntadii oo diyaara ayuu u yimaadaa 2 saacadood ayuu asagu nastaa ama uu raaxaystaa maruu cunto cunayo maruu hooyo la sheekayso 2 saacadood ka bacdi baana la siiyaa bay tiri idniga inaanu aabbahay u soo degno markaasaanu soo degnaa saanu la ciyaara aanu dhudhunkana hadhowna saytaa orda daba seexda aabihiin berito uu ka lahayaa ixtiraamka markaa ninka caynka loo ixtiraamo waxaan ka bartay hooyaday ka bacdina waxaan akhriyay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo caynka ragga loola dhaqmo ayaan bartay waxaa jira rag fara badan oo halkan aan maanta hadlaynin oo sida fiidmeerta guriga ka warwareega oo meelaha ma dhamo maqaxibu ka soo sheekaynaya halkan buu kalba halka mar buu hebel leeyo tagaya hebel baan meel geeyay buu oranay inta wuxuu sugayaa inta tii ka seexanayso wogtay ilaahayo tii basi on dheh wuxuu sugayaa inta tii guriga ma sha Allah ka seexanayso waayo wuxuu ogyahay markuu jidh guriga soo galo in lagu bilaabayo maxaad qabatay xagaa tagtay maxaad samaysay dagaal buu marka u diyaar yahay dagaal wallahi mid wuxuu igu yiri qaylan guriga marka albaabka sidaa u furo waxaad moodaa buu inay aniga isugayso buu markan albaabka sidaa u furo waa ay soo fatahda ayadoo qaylansan ka seexdaa buu yiri ayadoo qaylansan waan soo toosa saan habuu tara habeen isku waxa u dhimay qaylanaysa mise way nasatay waxa looga jeedaa marka caruurtii ka warramay marka caruurtaadii wuxuu yiri caruurtii ima ixtiraamaan ima maqlaan igama dambeeyaan waxba igama dhageystaan waxay ku tiraahdaa saaqid sida abaha saaqid ha noqon ku tada caruurta orada wax akhriso ila macnaha orada wax akhriso wadumarka laga aawdo bilaysto gabadhu saadani ay saalixadan oo aan ay faasida tahay reerkii iyo bulshadii way gubaysaa waxa masaa'ib ah oo annaka lagu ibtileeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala haydin ka badbaadiye fasaadka gabadha waxa kamida dumarkii inay baxayaan miya aragteen dumar habeenkii guuraynaya miya maqasheen wali waxaanu u naqaanay gabadhu hadday cishaay markay cishaay wixii ka dambeeyay haddii aanay khayr ku maqnayn inay ceebtayna gurigeeda ka maqnaato gabadhu annaka waxaa ilaahay nagu ibtileeyay dumar doonayna habeen oo dhan soo jeedaan war ma security ba maxaa xagga la tagayaa aroosya la samaysanaya xafladu weekendka aanu aroos jirin ayaga is casuumaya ilaahay noo barakay dumarka waxaynu naqaanay dumar ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna wada asture dumar gurigooda u soo hoyda masaa'ibka imika annaka xaggeega waska marka la eego na haysta waxa weeye gabadhii waxay doonaysaa inay habeen oo dhan ama waa xaflad ama meelay ku soo sheekaynaysaa qaar baad habeenka aad mooday night shift galayaanba ilaahayna wuxuu nagu yiri quwa anfusakum wa ahliikum ilaahay wuxuu nagu amray inaynu inaku iyo dumar reeraheena inaynu badbaadino ninkana waxa lagu amray wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha reerkaaga waxaad ku amartaa inay tukadaan una sabr meelay ku taalo quraanka ma jirto gabadhaadu habeenkii ha guurayso una sabr ma jirto meel xadiisna kumaan arag aayadna kumaan arag meel ay shariicadu dumarka u ogolaanayso inay meelaha habeen oo dhan ay sida fiidmeerta ay lugeeyaan oo aroosiya ka soo tumaana ama ay ma jirto gabadhu marka gabadha muslimadda ah waxa laga filayaa inay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsato oo ninkeeda iyo reerkeeda ay dar yeesho gabadha saalixada waxa lagu yaqaana inay dar yeesho reerkeeda
ينين كذا واتق حديث كي أم سليم وذا ما قش أم سليم واحد جرسدين با جرسين أنصارته ilmay isu dhareen ilmihii baa ka xanuunsaday ilmihii baa markuu xanuunsaday wuu dhintay ilmihii odaygiyo maqan ilmihii bay aastay reeshaqadii bay dhammaysay habeenkii bay isu diyaarisay ninkeeda way caashaysiisay ninkeedii bay isu diyaarisay markii wax walba dhammaadeen bay tiri ka warran bay tiri hadduu qof ammaano inagaga tago hadhana uu ammaanadiisii uu la noqdo inaynu ka xumaano inaynu ka xanaaqno ma waajib bay nagu tahay تماي أمانة ذي عري بويد محاك والي واحد ذا إلهي أمانة النسيه أمانة ذي نقول النقضي إلما يرى أمانة النسيه أمانة ذي نقول النقضي وحنا قوحيلي ما نو إلما هاي قد انتي أياد إسوك يسوي قرحسي إعاشي سيسي أدوحد وعروض وأبو الضوضي نبي جيبه أتجي صلى الله عليه وسلم وأن الضوضي مركان قبل عينك أم سليم عينك سيوسم يقول يا رسول الله وحول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وهجات سرنت إلى هين حالته علمه أيو إذن كأبورة علماء وحنا ذا المهاسي لا شيء هبينك علمه ولا أبورة ما كل شيء وين هذا أرت طبعا إنن أو حافظة أيو الهيسي خير كي أدونك يا آخرنا وسي المصالح بقى المصالح أيها dadka meero fara badan ragga Soomaaliyeed waxay ka ashkatoodan waxay yiraahdaan dumarka iyagu waxay isqurxiyaan oo ay isdiyaariyaan waa marka aroos la tagayo soo dhab maaha iska qeyrta dumarka idima arkayaan iska qeyrta idima arkayaan gabadhaynu dumarkeen hadii ma sha Allah habeenka aroos jiro dirici ugu dambeeyay dahabka meel Allah leey meel ka keenan garan mayna way iska lulaan dumarku berigi hore waxa la yiri dacas bay sadhici jireen inta ismariyaan baa la yiri bahalkii maxaa loo jiray mayba berigi dambuuyin boorarkii imika gabadhu makiyash bay tagaysaa salon bay tagaysaa timahay soo feedaysaa way soo qurxinaysaa caynka gabadhiya xural cayn moodid ayaa ka baxaysa waxay soo noqonaysaa iyadoo daalan diricii iyo dahabkii iyo wixii aad u iibisay ma iyadoo ama iyadoo iibsatayba adugu kulliba horta la tatamatacu bih dadka dabada jooga ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasiibkooda siiyay ninba ka sheekeynayay wuxuu yiri gabadhaydiiba waa la soo hadlay waxaan ku iri caawa wayna la casuumay diyaar garow casuumad ayaa caawa jirta diyaar garow wuxuu yiri gabadhii baan u imi makeup bay sii marisay way isa sii qurxisay xamuurad bahalkii indhaha maxay xiriba beena oo aad moodid kuwi gorayada in dhabanadii bay casaysay cidiyo beena oo fake ay iska taagtay wuxuu yiri gabadhii oo aad moodid xural cayn baan gurigii imi oo diyaar gabadh markaa waan fadhiisay kabiibaan iska bixiyay way iyara sugtay waxay sugaysaa intan meedmeedanayo waan meedmeedhay bajaamahayga iska soo xidhay macaawusaydii waan dhex fadhiisay gurigii war maxaa dhacay bay tiri miyaan baxaynin wuxuu yiri maanta innaka is casuunay innaka ayaa is casuunay oo waxaan u darsaday gabadhaydii quruxda badnayd inaan mar kale arka ayaan jeclaaday marka ilaahay ku barakay wad qurux badan tahay sida inoogu joog buu yiri waxay tiri ma ka dhaba ha buu yiri oo kaftan maaha kaftan wuxuu yiri inta sidaa tiri ayaa wixii ay dibnaha marisay iyo wixii ay dhabanada marisay iyo wixii indhaha marisay sidaa isku dhamboqday buu yiri ifriidar ba ka soo baxay buu meesha ilan color buu leeyahay عفريد ير هاي كوك كذب قويت المركة وايكن هاي كوك كذب قو قبل مسلمات ده واحد لو جاب هنيا إن النين كذا يسوق رحيسه وهدي أيدون يسوق حفلة إن بدلته عينك إن وقت مناسبة
ay ka bax ay u timaado ay tagto oo aanay ka noqoto wadaadada kamida wadaadada kamida ayaa wuxuu yidhi gabadh wadaad sheekh macruuf oo la yaqaano halkana mar idinku yimi ayaa wuxuu ka sheekeeyey qoysku caynku u dhaqmi lahaa iyo raxmadda iyo mawadada iyo jacaylka wuxuu yidhi markaa gabadh baa muxaadaradii bay dhegaysatay waxay tidhi caawa sheekhu wuxuu sheegayo ayaan ku dhaqmaya wuxuu yidhi way tagtay gurigii bay diyaarisay uunsi bay ku shiday casho wanaagsan bay samaysay iyadii baa isqurxisay miiskii bay cuntadii dhigtay wadaadkii baa guriga soo galay wadaadkii markaa wuu yara yaabay dee meeshii qiiqu sida isu haysto ayadii oo dhalaalaysa wuu iska aamusay cashadii buu cunay shaah baa loo keenay wuu iska fadhiistay hadha buu leey naa heblaayo caawa yaa inoo imanaya say tiri cid inoo iman maysee adiga ayaan sukaa qurxiyey rasuulillah ma kaa dhabbaa way soo noqoto way xanaaqday waxay tii maryii baan iska bixiyey waan iska seexday sheekhii bay tii nasiixaddii aadna siisay may shaqaynin oo dee ninkayga imuu qadirin juhuud jahdigan isgeliyey iyo dadaalkan isgeliyey iyo wixii muu qadirin wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu yidhi kaagamuu baranin hadduu kaga baran lahaa oo maalin walba isu qurxin lahayd ama wiig walba isu qurxin lahayd dee wuu qadari lahaa laakiin wuxuu bartay marka la isqurxiyo ee dahab la iska lulo ee dibnaha la caseeyo inay tahay mar la baxayo marka waxaan leeyahay gabadha muslimadda ee weliba soomaaliyadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsato oo ay ka fogaato waxyaabahaas oo kale risaaladii loo dhiibana inay fahamto waxaan ku soo gunaanadayaa marka kow rag iyo dumar borta inuu ku dhaqanno bikitaab illah ina kitaabka ilaahay lagu dhaqmo ha uguna horayso alqawaama ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay oo wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamaddu markaa waa maxay inuu ninku uu noqdo madaxii guriga maaha inuu noqdo jeeniga ama dabadhilifka maaha waa madax waa qofkii mas-uulkii guriga waayo yowma alqiyaamaha waxaa la weydiinayaa mas-uuliyadda guriga waa ninka isagaa lagu horraysiinaya waxaa lagu horraysiinayaa gabadhaadu xaggay tagtay inantaadu xaggay tagtay carruurtaadu maxay cuneen maxaa gurigaaga ka jiray ma telefisyoon iyo fusq iyo fasaad iyo musalsalaad baa la daawan jiray mise muxaadaraad iyo duruus iyo cilmiba guriga lagu akhrisan jiray ma telefoon iyo ghiiba iyo namiima ayaa ka socotay mise dikrullaha iyo waxa ka socday wax ilaahay la xusayo ninka ayaa laga waraysanaya gabadhu marka ilaahay wuxuu sameeyey aadanna xaawo ayuu agdhiga ku laray ninkuna waa markaa wuxuu taagan yahay maqaam aadam aabaheen calayhi salaam gabadhuna waa xaawoo kale hadafkuna waxay ahaayeen ina dhurriya saalixa ay keenaan khulafaa ilaahay ugu talagalay inii jaclin fi lardi khaliifa khilaafadda ilaahay ka hadlay inay ka wada shaqeeyaan ninka iyo gabadhuba inay labaduba ku dadaalaan ayaa la doonaya waxaan idinku celinaya oon aad iyo aad ugu celcelinaya gabadha muslimaddii inay ilaahay ka cabsato ay u saburto ninkeeda iyo caruurteeda iyo risaaladii ilaahay u dhiibay inay xambaarato ay la socoto aanay ku mashquulin waxyaabo bilaa macno ah iyo tafahaat dunya iyo heblaaya la guursado iyo heblaaya la mehersado iyo hudheerkaasa lagu qabsado iyo heblaaya la isfurayo waxyaabaha laakiin inay ka fakirto caynka reerkeeda u badbaadin lahayd ninkanu markaa asaguna qawaamadii laga filayey inuu la yimaado waayo ilaahay subxaanahu wa tacala waa kii qur-aan ku sheegay quu anfusakum wa ahliikum waa kii ilaahay qur-aanka ku sheegay aniga intaasay iga tahay waano ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana horena waan idinku sheegay muxaadaradani waxay ahayd dowra almar'a fi lislaam ugumana jeedo inaan dumarka la cambaareeyo ama ragga in ziyaada ah la saaro ragguna tooda way leeyihiin dumarkuna tooda way leeyihiin insha allah marka dambena wada hadalna waxaa laga yaabaa inaynu waajibaadka rag laga hadlo oo waxaan arkaa aniga aad iyo aadan u arkaa
ninkii horta geedkii nin la odhan jiray wuu dhammaaday xagga iyaga wax rag la yidhaahdaa ma joogaan waan aad bay ugu yari xuquuqda waddanka iyagu 4 darajadood weeye ixtiraamku 4 darajadood weeye ixtiraamka ugu horeeya waxa weeye waxa la siiyaa iyo xuquuqda ugu horeysa waxa la siiyaa waa dumarka xuquuqda labaad iyo ixtiraamka labaadna waxa la siiyaa waa caruurta ka saddexaad maxaa u maleynaysaan waa ayga iyo bisadaha la siiyaa xuquuqda afaraadna waxa weeye ragga ayaa la siiyaa marka raggii ku soo socday horta Yurub iyo ugu imanaya Mareykanka de ahlan wa sahlan caynkaasaan ku nool horta haddaa jecesheen number 4 ka gashaan la soo gashaan de ahlan wa sahlan haddii kala qawaamadina iyo sharaftina iyo ciizadina ilaahay idin siiyay fi araadi almuslimiin taa nicmaysta taa hala nicmaysto marka raggana maalin ma la hadli doona laakiin muhaadaradan waxay ku saabsanay dumarka walillahi alhamdu wal fadl wal minna subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun